أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دما ولا راه قيمها يقايها لي ku xiran channelkeena Fatima Muna channel khayr iyo barwaaqo badan ayaan idin rajaynayaa meel walba daafaha dunida kala joogtaan iyo xilli walba oo idin soo gaaro videogan. run ahaantii saaka waxa ay kusoo baraarugeen dadka reer Masar faldabiyeed iyo qisad aad u naxdin badan oo fajac iyo ama kaag iyo naxdin runtii ku dhacday qof walba oo dhageystay amba akhriyay qisadaas. arrintan waa arrin saaka dhacday. waxa dhacday in ay hooyo haysato 3 caruur oo degan tuulo yar oo muxaafadad Daqahliya meel la yiraahdo degan ayaa hooyadaasi waxa dhacday run ahaantii hooyadaas inay dishay 3 caruur oo ay dhashay. haddaba arrintaasi siday u dhacday waxa dhacday in ay hooyadani waxay ahayd hooyo haysata 3 caruur. 3 caruur waxa lagu sheegayaa inay daadoodu tahay 10 jir, 5 jir, 2 wiil oo midna 10 jir yahay, Axmed iyo Anas. ilmaha yare inantiina waxaan u malaynay magaceedu inuu Sumayya ahaa haddii aanan khaldahayn. sidaan saaka journalka iyo uga akhriyay maaragtay iyo videoyadii kala duwanaa ee saaka aan maaragtay ka daawaday warkan oo runtii qabsaday meediyada Masar iyo guud ahaan dawladaha Carabta. hooyadaasi 10 jir iyo 5 jir iyo 3 bilood ayaa lagu sheegayaa. wararka qaar waxay sheegayaan ilmaha koobaad inuu yahay 7 jir, ilmaha kalena 5 jir, ilmaha ugu yarina 2 bilood. hooyadani waxa ay ka soo baxday jaamacadda macalinimada amba kulliyada tarbiya qismi luqa al-arabiya ay ku takhasustay. ninkeeda laftigiisa odaygeeda oo qabay caruurta aabahood waxa uu isaguna uu ahaa nin ku takhasusay macalinimada, laakiin isagu wuxuu ka shaqeeyaa oo uu degan yahay dalka Saudi Arabia. waxaynu wada ogsoonahay masaari badan in ay yihiin dad maaragtay macallimiin ah oo ka shaqeeya wadamada khaliijka gaar ahaan Saudi Arabia. marka odaygeedu waxa uu ka shaqeeyaa Saudi Arabia oo uu ka yahay macallin halka ay hooyadu ay markaa degan tahay Masar caruur yar haysato. marka dabaqa sare ayay deganayd, dabaqa hoose guri 2 dabaqa ayay deganaayeen. dabaqa hoose waxa deganayd hooyadiisa odaygeeda hooyadii amba saddexdeed ayaa deganayd. dabaqa sarena waxa deganayd xaaskan caruurtii dishay iyo amba hooyadan caruurtii dishay iyo caruurteedii yaryarayd ayaa isla deganaa. dadka tuulada degan maaragtay magaalada deganay dadkii la deganaa waxay sheegeen inay ahayd gabadh edeb iyo akhlaaq ku safaysan. dadkii jaamacadda la dhigan jiray waxay sheegeen inay ahayd gabadh aad iyo tacliinta ugu fiicnayd oo waliba dufcadeedii maaragtay jaamacadda dadkii kaga ku guuleystay darajadii ugu sareeyay maaragtay jaamacadda ayay kaga baxday. hooyo guri joogta ayay ahayd. 3 caruur oo yaryar bay haysatay. odaygeeduna sidaan soo sheegay safar ayuu kaga maqnaan jiray oo nin u soo shaqeeyay ayuu ahaa. dhibaato dhaqaale may haysanin waayo shaqo wanaagsan buu odaygeedu ka shaqeynayay. dadka badanaa Masriyiinta dadka khaliijka ka shaqeeya qoysaskoodu way ladan yihiin bacdamaaba maaragtay wadan kale looga soo shaqeeyo lacag loo soo diro. marka dhaqaale ahaan wax dhibaato ihi may haysanin baa la yiri hooyadaas. laakiin waxa haddana dhacday in subaxnimadii saaka ayeeyadu ay istiri maaragtay u tag reerka oo ay ku garaacday albaabka. kadibna ay cidi ka furi weyday albaabkii. kadibna albaabkii markay soo furtay ayeeyadu inay aragtay 3 caruur ahaa oo intay hooyadu gowracday kulligood qoorta ay ka jartay amba ay ka gowracday maaragtay cunaha inay 3doodiiba is ag dhigtay sariirahooda dhexdoodii maaragtay dhulka oo sariiraha dhexdooda 3 caruur intay wada qashay inay wada ag dhigtay subxaanallahi alcadiim. kadibna hooyadii gurigii ayeeyadu markay aragtay arrintaas booliiskii baa loo yeeray. waxa markaa booliisku ay baaritaan ku sameeyeen gurigii waxay heleen warqad ay hooyadu ka tagtay. haddaba warqadda waxa ku qornaa waynu usoo noqon doonaa, laakiin booliisku baaritaanadii marka uu sameeyey waxa uu arkay run ahaantii oo maaragtay kamaradihii security kamaradaha ee shaarica amba jidadka maaragtay ku rakibnaa markii dib loo baaray waxaa la arkay hooyadani in ay lugaysay 2
kilomitir masaafad ah. markaa meel bridge ah markay soo gaadhay in ay isku tuurtay wax loo yaqaano jaraar ziraaci amba tractor. waxana weeyaan baabuurkan maaragtay beeraha lagu falo tractorka la yidhaha kaasa isku tuurtay. kii markay isku tuurtay ninku ka leexday laakiin haddana shaagagiisii ay isku tuurtay waxaweyaan dhaawac ayaa soo gaadhay. markaa waxay isku dayday inay iyadu isdisho sida ka muuqata arrintaasi. markaa waa la qaaday dhakhtar baa la geeyey. dhakhtarkii markii la geeyey waxaa la arkay iyada laftigeedu inuu nabar qoorta kaga yaalo gowrac ah oo isku dayday inay nafteedana gowracdo amba ay isqasho iyaduna. laakiin markay isgowrac istiri inay ku guuleysan weyday oo qofna naftiisa ma gowrici karo. kadibna nabarkaas inay hunguriga uu kaga yaalo laakiin markay aragtay inayna sidaa isku dili karahayn ayay go-aansatay in ay dabadda u baxdo ay markaa baabuurada isku hor tuurto. markaa baabuurka tractorka ah ayay isku hor tuurtay. dhaawac halisa ayaa soo gaadhay. wararka waxay sheegayaan galabta in ay booliisku ku guuleystay haddana in ay waraysi ka qaadaan oo ay qiratay inay iyadu faldambiyeedkaasi sameysay caruurteedii iyadu gacanteeda ay ku dishay. haddaba haddaynu usoo noqono warqadda waxa aan halkan idiin akhriyaya warqadii ay ka tagtay ee loogu tagay qolkeedii marka caruurtii oo ay qashay oo qolkoodii yaala loogu tagay qolkeedii iyada markii la baarayna warqadda loogu tagay. warqadda haddaba maxaa ku qornaa? haddaba warqadda waxa ay ku qortay sida tan. waxay tidhi ana wadeet wilaadak liljanna ya maxamed. anigu maxamedow ninkeeda maxamed la yidhaha. markaa waxay tidhi anigu caruurtaadii waxaan geeyey jannada maxamedow. wa inta kamaan xatruuxi ljanna adiguna jannada ayaa tegaysaa maxamedow. macaahum ayaga ayaad u raacaysaa jannada bay tidhi. liannak ma asartish macaana fi ayi xaaja yacni annaga waxba nagamaad hakranin bay tidhi. waxba nagamaad hakranin. ana ilaa asarti macaahum wabidhaat axmed. waxay tidhi aniga ayaa ka hakraday amba waajibkaygii kasoo bixi waayey khaasatan axmed ayaan maaragtay yani aanan waajibkii iga saarnaa aanan yani si fiican ugu gudin amba aan yani hooyo fiican u ahayn bay ka wadaa. fakaan laazim awadihi ljanna waxaan ku qasbanaa markaa inaan jannada geeyo. liani dhanbu fi ra'abti dembigiisu qoortayda ayuu saaran yahay. laa callamtu lkalaam wala alxayaa wala altacliim waikhwaatu macah fi ljanna. axmed bay tidhi maan barin hadalka maan barin manaanan barin nolosha manaanan barin tacliinta. isaga walaalihiina isaga ayay jannada u raaceen bay tidhi. isbir waxtasibhum. waxay tidhi markaa isbir waxtasibhum cinda allah yacni samir yeelo oo iyaga xag alla maaragtay ku xisaabso yani ajarka. maxay tidhi waxay tidhi wayaa baktak biljanna ama ana adiga waxaad nasiib ku leedahay bay tidhi oo ay yani aad nasiib u leedahay in aad jannada aad tegaysid bay tidhi. ama ana fa idciili أنا كنت بتعذب في الدنيا ومش قادرة أعيش. aniga ii ducee bay tidhi anigu nolosha ayaan ku cadaabnaa bay tidhi oo aan ku dhibaataysnaa waanan awoodi kari waayey in aan sii noolaado. saamixni rabbina yikrimak billi tistahlak. aniga bay tidhi isaamax oo icafi ilaahay adiga ha kugu arsaaqo oo ha kugu maaragtay sharfo mid aniga iga fiican oo adiga ku qalanta. ويعوض عليك بولاد أحسن من ولادي. إلهينا عوض خير قبها كاسي عرور تيدا كاغا في عم بيتري. marka run ahaantii sida aynu maqalnay amba aynu akhrinay aynu tarjunay weeyaan warqada ay qortay shakhsi ahaantayda markaan anigu dee akhriyay aad bay iga muuqataa qofkani inay maskaxiyan ayna caadi ahayn. waayo awalan waynu wada ogsoonahay hooyo caruurteeda waxyeelada intaa leeg yeeli kartaa oo gacanteeda ku dili kartaa inayna maskaxdeedu fadhiyin. arinta labaad waxa weeyaan warqadu siday u qoran tahay inay leedahay caruurtaadii ayaan jannada geeyey. ma hooyo caruurteeda intay disho is odhanaysa jannada geey. teeda kale iyada laftigeedu waxay isku dayday inay isdisho way isqali kari weyday kadibna waa tan baabuurkii tractorka isu dhigtay.
ninkeedii ayay u qoraysaa warqad ay markaasi ay leedahay adiguna jannada ayaad geli doontaa. sidee ku ogaatay isagoo inuu jannada geli doono? waxa weeyaan waxyaabo maaragtay aad arkaysid hadallo iswada maandhaafa iswada dhaafa oo yacni aan dee caqli galahayn ayaa ku qoran warqadda iyo habkay u qoran tahay. sidoo kale waxaa la sheegayaa ilaa hadda wararka soo baxaya waxay yihiin hooyadani in ay reerkeeda amba qoyskeeda ay ku jiraan dad maskaxda xanuunada maskaxda qaba. marka history maaragtay amba taariikhiday u leeyihiin qoyskeeda inay leeyihiin xanuunadaas maskaxda ku dhaca amba noocyada kala duwan ee waalida. marka waxaa loo malaynaya hooyada laftigeeda inay waxaasoo kale saameysay. sidoo kale yaynaan iloobin hooyadan ilmaha ugu yar waa inan yar oo jirtay wararka qaar waxay leeyihiin 2 bilood, wararka qaarna waxay leeyihiin waa 3 bilood. marka halkaa waxaa ka muuqato hooyadu inay weli umul ahayd. waxaynu ogsoonahay xanuunada depressionku inay ku dhacaan hooyooyinka umusha in ha kala darajad sareeyaan oo ha kala severe amba ha kala maaragtay xaalad adkaadaan. qofna si fudud bay ugu dhacdaa qofna si maaragtay culus ay ugu dhacaan. marka xanuunkaasina waxaa laga yaabaa inuu umusha uu hooyada ugu soo maaragtay gambaday amba maaragtay umusha uu ku dhacay xanuunka maskaxdu. teeda kalena yaynaan iloobin hooyadani waa hooyo keliya sababtoo odaygeedu safar ayuu kaga maqan yahay. mas-uuliyadda caruurta keligeed ayay haysaa oo ay maxaa heday keligeed hooyo keliya ay tahay. waxaa la sheegayaa inay ahayd hooyo amba gurigoodu inayna ahayn guri dad badani booqdaan oo ay maaragtay dad aada u xidhxidhan ay ahaayeen. sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay haddana qoyskeeda odaygeeda xidhiidhka iyadii odaygeeda ka dhexeeya uu ahaa xidhiidh wanaagsan oo odaygeedu ahaa nin maaragtay waxba ka hakran sida iyaduba warqadda ku sheegayso. sidoo kale inuu geeyey beri dhaweyto uu geeyey xaramka oo iyada laftigeeda sacuudiga ay u tagtay cimrad oo soo cimraysatay. isaguna ramadaantii ka hor uu ka tegay oo maxaa heday uu waqti uu la qaatay qoyskiisa. calaa ayi xaal waxay noo muuqataa arrinta hooyadan ku kaliftay inay tahay dhibaato xagga maskaxda ka soo gaadhay. waa arrin argagax iyo naxdin leh runtii. aabihii miskiinka ahaa ee sacuudi arabiya macalinka ka ahaa ayaa loo geeyay warkaasi. waxaa lagu yidhi xaaskaagii ay caruurtaadii dishay iyadiina isdishay oo maaragtay dhaawac halisa ah. aabihii halkii ayuu diyaarad kasoo qaatay. waxa uu maanta uu isla galabnimadii uu maaragtay yimi masar si uu meydadka caruurtiisa uu kala wareego maaragtay baaritaanada amba qaybaha lagu baaro crimeka dhakhtarka talaagada oo uu halkaasi uu ku aasan karo caruurtiisa. runtii waa arrin aada iyo aada iyo aada naxdin u ah. waynu qiyaasan karnaa ayeeyadii caruurteedii ay maaragtay ayeeyada u ahayd iyo xaaskii wiilkeeda ay guriga qeybta sare ka deganaa ay istiri subaxnimadaa soo booqo oo u tag shanqadhoodii ma maqlayside ay iyadu qofkii ugu horreeyay ee aragta ay ahayd caruurtaas halkaa lagu dilay sida arxan darrada ah maaragtay loo dilay iyo dhibaatada intaa leeg. marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala waxa aynu ka baryaynaa samir iyo iimaan inuu qoyskaas siiyo. hooyadaana ilaahay subxaanahu watacaala kolley hooyo fayow maahe inuu ilaahay caafimaad siiyo iyadana oo iyadana samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo. haddii ay dee sida maskaxdeedu ku fayowdahayna in kolley kuma fayoobe in qasaas looga maaragtay gooyo oo lagu ciqaabo fal dambiyeedkii ay gashay. laakiin anigu waxaan u arkaa qof xanuunsanaysa oo iyadu in la daweeyo oo jir ahaan laga daweeyo waa qofka maaragtay baabuurka isjiirsiisay ee iyada iska waracday iyo welibana in maskax ahaan loo daweeyo u baahan. ilaahay subxaanahu watacaala musiibadahaas ordaya maalin walba joornaalada iyo maaragtay newska kolba mid maaragtay laga arkayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ilaahay ina barbar mariyo inuu ilaahay ka baryana. ilaahay subxaanahu watacaala musiibadaha ordaya inuu ilaahay naga badbaadiyo qadarta sharkeeda inuu rabbi naga badbaadiyo khayrkeedana inuu ilaahay na siiyo inaga iyo ummadda islaamka aynu ilaahay ka baryana. intaynu ku kulmi doono barnaamij kale waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.